laba doonyood oo ah kuwa dheereeya isla markaana ay saaran yihiin hub ayaa goordhow ku soo xirtay dekad ku taala magaalada Saylac ee gobolka Awdal hubka waxaa la sheegay inay durban la wareegeen ciidanka Somaliland haddaba hubkaasi markii lagu dagaalami lahaaba dadka deegaanka magaalada Saylac iyo deegaanada hoos yimaada gaar ahaan beesha Ciise faahfaahin ayaan ku soo gudbin doonaa oo amuurta ku saabsan sidoo kale qodobada kale hadii Allah awood la waraali ka noqdo aan ku soo gudbin doonaa waxa qayb ka noqon doona garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee maamulka waqooyi bari iyo ciidamo u wato oo goordhow iskaga baxay magaalada Laascaanood garaadku wuxuu u foofay ama aaday dhinacaas iyo magaalada Saxdheer waa halkii uu muddada fog ku noolaa khilaafka garaadka dhag jalaq waa loo siin waayay wararkii ugu dambeeyay amuurta ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee xiisaha leh aan ku soo gudbin doonana waxa qayb ka noqon doona beelweynta fac weyn ee Ciise oo hanjabaado adag u dirtay ciidanka Somaliland dagaal laga cabsi qaba inay mar kale maanta ka dhacaan bariga iyo galbeedka magaalada Saylac ayaan faahfaahintooda ku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee ugu soo kordha ayaan saaxiibayaal faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kugu horeysay ku soo biir daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga ee noogu reeb muuqaalka aad daawanaysidna like saar qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa laba doonyood oo ku ah dheereeya ama kuwa dheereeya ah isla markaana wada hub ayaa waxay ku soo xirteen dekada magaalada Saylac ee gobolka Awdal markii ay labada doonyood sida u soo istaageen ba hubkii saarnaa oo dhan waxa kala wareegay ciidanka Somaliland waxaana lagu raray laba gaari oo Cabdibilla ah iyo hal gaari oo waaraad ah oo meesha ku diyaarsanaa hubka baaris dheer oo aan ku sameeyay waxaan ogaaday in hubkan laga keenay dhinacaasi magaalada Berbera Saylacna sidaas loo keenay dabcan waa hubkii la rabay in lagu gumaado shacabka masaakiinta ah ee beesha Ciise kuwaas oo dhawaan weerar culus kala kulmay ciidanka Somaliland ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa goordhow telefishinka daraja waxay u xaqiijiyeen in ceeb iyo fadeexad weyn ay dul hoganayso Somaliland maadaama dhawaan lagu eedeeyay ciidanka Somaliland inay toos u dileen dad rayid oo aan hubaysnayn labada doonyood ma wadan wax calan ah mana lagu arkin wax astaan ah muuqaal kooban oo qorsoodi loo duubay oo goordhow soo gaaray ayaa waxa uu muujinayaa in labadan doonyood gaadiidkii hubka ka qaadi lahaa mar horeba la sii diyaariyay taasoo dabcan ku tusinaysa in wax walba ay ahaayeen wax degdeg ah isla markaana si qorsheysan u socday hubkan hadii uu si sharci darro ku soo gali lahaa deegaano kamida gobolka Awdal waxa qaban lahaa ciidanka Somaliland laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in hubkan sida sharci darro uusan u soo galin isla markaana uu ahaa hub qorsheysan oo markaasi si weyn qaban qaabadiisa ay ugu raajoogeen ciidanka Somaliland dabcan ciidanka Somaliland ee dhawaan weerarka ku qaaday dadka masaakiinta ah ee waliba xoolo dhaqatada ahaa ee ka soo jeeda beesha Ciise ayaa waxa uu dhaliyay tuhun ah malaha Somaliland waxay rabtaa inay tirtirto dhammaan dadka deegaanka la yiraahdo beesha Ciise kuwaas oo dharaar iyo habeen u taagan difaaca aayahooda iyo mustaqbalkooda beelweynta Ciise iyagu inkastoo aysan ka jawaabin hubka laga soo dejiyay dekada magaalada Saylac haddana wararka aan helay ayaa waxay tilmaamayaan intana ay noqon doonto fadeexad weyn oo dul hoganaysa Somaliland oo ku aadan in hubkii qaranku loo soo iibiyay dad rayida loo adeegsanayo beelweynta fac weyn ee Ciise waxay dhawaan sheegeen inay aar gudan doonaan hubka waxa wararku ay sheegayaan in la geyn doono laba magaalo midkood waa magaalada lagu haye ama in la geyn doono magaalada Caynaba halkaasna la filayo aandhe magaalada Boorama halkaasna la filayo in dadka rayidka ah laga gumaado beesha reesha Isxaaq iyo beesha Gudubirsi waxay hadda u mudoobeen sidii ay u tirtiri lahaayeen beelweynta fac weyn ee Ciise oo lagu eedeynayo beesha Ciise laftirkeeda in ay dad rayid ay laayeen laakiin baaris aan sameeyay waxaan ogaaday labadii nin ee lagu dilay xadka dawlad deegaanka iyo gobolka Awdal in ciidanka Somaliland ay dileen kadibna si marmarsiyo ah oo dadkaasi loo dilo awgood weerarka sidaas loogu qaaday waxay ku soo kordhaa saaxiibayaal dadka ugu horeeya ee maqla ama daawada ayaa noqon doontaan iyada oo wararka iyo warbixinada amuurta ku saabsanna aan idiin soo gudbin doono wixii ka soo kordha markana
garaadka guud ee maamulka waqooyi bari garaad jaamac garaad cali ayaa la soo warinayaa inuu maanta iskaga baxay magaalada la yiraahdo Laascaanood oo ka tirsan gobolka Sool xarunta maamulka waqooyi bari طبعا garaad jaamac garaad cali dhawaan kama uusan qaybgelin ama kama uusan qayb ahayn xafladii caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa taa bedelkeeda waxaa la sheegay in garaad jaamac garaad cali uu diiday haba yaraatee in uu xaflada tago khilaafkii u dhaxeeyay maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale garaad jaamac garaad calina lama xalin siiba labada nin ee aadka isku haysta waa garaad jaamac garaad cali iyo sidaas lamid ah Cabdiqaadir Firdhiye macluumaadka iyo wararka la helaya ayaa waxay tilmaamayaan in garaad jaamac garaad cali uu si weyn u diiday xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye iyadoo taa bedelkeeda sheegay in haba yaraatee uusan qayb ka ahayn waxa la dhoodhoobay oo uu la jeedo maamulkan curdunka ah oo ay dadka deegaanku dhisteen dad badan oo arrimaha la socda ayaa waxay leeyihiin Cabdiqaadir Firdhiye waxay ahayd inuu wax badan oo tanaasula sameeyo iyo inuu sidaas si lamida sameeyo wax walba oo karaankiisa ah oo ku aadan in la baajiyo ama laga hortago in garaad jaamac garaad cali uu magaalada Laascaanood iskaga baxo magaalada Saxdheer oo muddo ku noolaa waagi xataa Soomaaliland ay Laascaano haysatay waagi Puntland Laascaano ay haysatay iyo hadda maamulka waqooyi bari Laascaano uu ka arrimiyaba wuxuu iskaga laabtay ayaa la leeyahay magaalada Saxdheer halkaas ayuuna ku sugnaan doonaa oo uu saldhigan doonaa halkaas ayuuna ku noolaan doonaa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen dad badan oo arrimaha la socda ayaa waxay leeyihiin garaad jaamac garaad cali waa nin waayo arag ah wax badan yaqaana wax badan soo maray isla markaana hadda u heelan in uu wax badan saxo laakiin cid fahanta la waayay waliba xafladii caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye markii la joogay dad badan ayaa u tagay garaad jaamac garaad cali oo waxa lagu yiri war annaga dartayado ama dadkan dartooda u tag xafladda caleemasaarka balse waxaa la sheegay in uu diiday waliba guriga uu deganaa garaad jaamac garaad cali waxa ku taalay maamulka hore oo dabcan hore ugu deganaa ee ahaa SCC Khaatumo of Soomaaliya dabcan waxay ka dhigan tahay maamulkan loo bixiyay waqooyi bari inuusan aqoonsanayn shaqo ku lahayn isla markaana uusan ba dib dambe xiriir iyo wax toona uu la sameeyay taasoo dabcan dad badan ay u arkaan inay tahay darbaaxa culus oo ku dhacday maamulka saldhigiisu yahay waqooyi bari la yiraahdo ee Laascaano ka arrimiya Cabdiqaadir Firdhiye ayaa isaga laftirkiisu si weyn loogu eedeynaya inuu wax tanaasula sameyn waayay oo uu dhowr jeer khiyaamay garaad jaamac garaad cali iyadoo iska badaaya Cabdiqaadir Firdhiye inuu garaad jaamac qanciye ee wuxuu khiyaamay ninkii ku-xigeenka uu ahaa oo xalkooda xalay uu markaasi la soo gabagabeeyay dhowr xubnood oo odayaal ah oo waliba beesha jaamacsiyeed ka soo jeeda ayaa waxa la leeyahay iyagu waxa ay markan xoog iyo xeelad bay isku geenayaan in bal khilaafka dib loo dhigo laakiin taas waa ay suurtageli wada wixii ku soo kordhay saaxiibayaal garaad jaamac oo Laascaano iskaga cararay waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe hadii Allah awood leh raali ka noqdo markana qodobadeena kale qodobadeena kale oo muhiimka ah ayaan fiirinaynaa iyo warar kale oo ku saabsan xaaladaha ka jira gobolka ee beesha Ciise ayaa waxa la soo warinayaa in ay markan qaadatay go'aan inaba aan caadi ahayn kaasi oo dabcan jihada meel kale u reegi doona sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno 14 bari ee la soo dhaafay beelweynta Ciise ayaa la soo warinayaa in ay xoog iyo xeeladba iskugu geeyeen in ay deegaanadooda xoreystaan iyadoo oo Ciisaha la leeyahay si walba waa looga gardaran yahay wararka macluumaadka la helay waxay tilmaamayaan in beelweynta facweyn ee Ciise ay qaadayso tallaabooyin dheeraad ah oo la sheegay in lagu joojinayo daandaansiga xarkaha goostay ee beesha Samaroon iyo reesha Isxaaq ay ku qaadeen beeshaasi iyo beesha Ciise la yiraahdo aad ba loogu khaldan yahay hore waxaad u ogeedeen in sin dhinac walba loo dulmiyay hadda waxa la leeyahay dulmigii beesha lagu hayay xarguhuba goostay oo jawiga meel kale ayuu aaday wararkay macluumaadku waxay tilmaamayaan in beesha Ciise ay dagaal weyn abaabulayso iyadoo maamul yiraahdo gubana lagu dhawaaqay oo xildhibaanada inta jooga waa Muqdisho ay taageereen maamulkaas gudaana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb muuqaalka inoo la gare soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan soo dhawaada
aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb muuqaalka inoo leegare soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada Somaliland oo in ka badan 10,000 oo asgari maanta soo dhigtay banaanka magaalada Laascaanood waa ciidamo si gaar ah u tababaran oo muddo tababar ku soo qaatay